maalin maalmaha ka mid ah waxaa safar galay imaam weyn aad wada garanaysaan, imaam axmed ibn xambal. safarkiisii wuu dheeraaday, marka wuxuu ku leexday xaafadda wuxuu ka raadiyey masaajidka ugu dhowaa uu galay. waqtiguu galay waxay ahayd waqtiga salaada maqribka ah. salaadii maqribka ahaa masaajidku ku tukaday. markuu ku tukaday nin sheekhuu ahaa, laakiin ikhlaasnimadiisa iyo uu isdhowrayo waxaa dhacday inuusan dadku isku sheegin. meel gooniu fariistay, kitaabkiisuu furtay, qur-aanku iska akhristay ilaa cishahuu sugay. salaadii cishaha markuu tukaday, jamaaca ku tukaday, maadaama mugdi ay noqotay, safarkuusan sii wadi karin, wuxuu go-aan ku gaaray masaajidkunu iska seexdo. masaajidka meel ka mid uu nidaamsaday, boorsooyinkiisii wixiisii markuu gooni u dhigtay uu kala nidaamsaday, ayaa waxaa u yimid ninkii masaajidka khaatimka ahaa. wuxuu yidhi waxaad u egtahay qof musaafir ahaa, uu dhahay. waxaad u egtahay qof raba meesha inuu seexdo. wuxuu yidhi haa, meel kaloo aan seexdo dad aan ka aqaana ma jiro. wuxuu yidhi lama ogola meesha in la seexdo. markaasaa wuxuu yidhi masaajidka lama seexan karo. maya lama seexan karo. marka waxaan kaa codsanaa inaad masaajidka ka baxdo. bas ninka markaa ma isku sheegin. marka hadduu isku sheegi lahaa madaxuu saaran lahaa. dadka hore saasay ahaayeen, waa isqarqarin jireen. waa calaamadaha awliyada ilaahay ka mid ah dadka inaadan dadku isku sheegin waxaa tahay. waxaa laga cabsanaya wax la yidhaahdo riyaa. qofka culummada saasay ka cabsanayeen. calaa kulli xaal wuxuu sameeyey alaabtiisu urursaday. banaanka masaajidka laga soo galo gees ka mid ah, masaajidka albaabka laga soo galayo geeskiisa meeshaasu xaarxaartay asoo dhiganaya. marka ninkii isaga wuxuu ku mashquulsanaa albaabada kale inuu soo xirxiro, dirishadii inuu soo xirxiro. markii uu soo baxay ayaa wuxuu arkay sheekhii oo haddana dhinaci kale raba inuu jiifto. markaasuu yidhi meeshaa maaragta inaad jiifato. haa, meeshaan lama ogola. intaas kuma joojinin, wuxuu sameeyey alaabtiisii isaga inuu soo jiiday, foorno ku hor taalay masaajidka hortiisa, meeshuu ku tuuray. ninaa fiirinayay marka. ninaa isha wuxuu ku hayay markuu albaabka ka soo baxay, markuu sheekha meesha xarxaarinayay wuxuu fiirinayay ninkaas wuxuu rabay albaabka foornada inuu xiro. waa salaada cishaa kadib uu foornada xiri jiray. foorno iyo dukaan waayo isku dhex yaalo, macnaha foornooyinkii hore oo markaasi ceeshka iyo rootiga samayn jiray. calaa kulli xaal ugu dambeyntii ninkii markuu arkay meesha in lagu soo tuuray ayaa wuxuu yidhi waxaad u egtaa qof musaafira. markaasuu yidhi haa. markaasaa wuxuu yidhi waxaad u egtaa qof aan haysan meel uu seexdo. haa u dhaha meelaan haysta malahan oo aan seexdo. wuxuu yidhi kaali soo gal foornadeyda, gudaha u soo gal ama dukaankayga. markaad soo gasho waxaan ku tusin doonaa meel gooni ah oo munaasab ah oo aad seexan karto. waayuhuu dhahay. wuu soo geliyey foornadii meel geesa oo nidaamsan, boorsooyinkii wixiisu u dhigay. wuxuu yidhi waxaan kaa codsanayaa meeshaan wax yar inay igu sugto, howl cajiini waxaasaan dhammaynayaa. markaan dhammeeyo waxaan markaasi meesha o dhan aan kaaga tegayaa, intaas ka seexanaysaa. markaasi kadib waqtigii munaasabka ku ah ayaad bixi kartaa ama salaada fajirka masaajidka aadi kartaa. waayuhuu dhahay. sheekhii markuu isku sugay meeshuu fariistay, marka wuxuu arkay ninkii cajiinka samaynayo oo ku celcelinayo astaqfirullah 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 astaqfirullah, ilaahu ii dambi dhaaf, ilaahu ii dambi dhaaf. marka wuu wadaa marka hawshiisa xaggu aadaa, waxbuu soo qaadanaya, waxbuu isku toosinaya, wuxuu dhammaystirayaa, maba hadlayo. astaqfirullah 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 astaqfirullah. ninkii marka sheekhi waa soo istaagay, waa u yimid. wuxuu dhahay kelmadan aad ku celcelinaysidaa igu soo duuduulaysa astaqfirullah maa leedahay? wuxuu yidhi haa astaqfirullah. wuxuu yidhi sidaan ilaa goormaa samaynaysa? ninkan waa caalim, uu ogyahay waxa uu ku hadlayo, uu dhahay wax weyn waayo. markaasaa wuxuu yidhi nolosheedu dhan aan sameeyaa. uu dhahay markaan shaqaynayo, markaan wax gadaayo keliya maahine, marka wuxuu dhahay intee jeeroo dhahdaa astaqfirullah maalintii? nabigana waa ogtihin wuxuu dhahay inii la astaqfiru 100 mara, rasuulka alai salaam, aw 70 70 jeer ama 100 jeer. isagoo dembigiisa loo dhaafay ayaa wuxuu yidhi intaasoo 100 jeer maalintii ama 70 jeer ayaan ilaahay dembi dhaaf weydiistaa, dembina ma lahayn. waxay ku tusinaysaa intaasoo jeer marka la dhahayo in la badiyo. marka wuxuu yidhi 100 ma akhrisaa? may 100 waa ka badan tahay. uu dhahay 1000 waa ka badan tahay. markaasi kadib wuxuu weydiiyey su-aal ah, markaad akhristo astaqfirullah ilaahay wax ma weydiisataa? markaasuu yidhi haa, waxaan rabaa weydiistaa. wuxuu yidhi ilaahay ma kuu jawaabaa? markaasuu yidhi maba jiraba wax aan weydiistay maalintaasi oo ilaahay usan isiinin hal shay oo ilaahay iga soo daahiyo oo weli aan sugayo. markaasuu yidhi ma waxaad leedahay waxaa ilaahay weydiisatuu ku siiyaa? maya, ilaahay maalintii u siiyaa ku dhahay.
waxaan weydiistay ilaahay maalinta wax iga maqan ma laha nolosha ugu fiicnaan ku jiraa laakiin hal wax aan jeclahay aan ilaahay weydiistay maadaama wax walbaba ilaahay uu isiiyey oo aan ku qanacsanahay waxaan aaminsanahay tanna ilaahay inuu isiin doono maxaa waaye uu dhahay wuxuu dhahay cid inaan u sheega ma raba aniga ilaahay waay markaan weydiista ilaahu tan aniga adiga waay waxaan rabaa waxaas inaan helaan dhaha may waa kuu ballan qaadayaa in magacaaga aan sheegi doonin laakiin waxaa qabanayso khayrka aan sheegi doono say dadka ugu faa'iidaystaan marka ma ii sheegi kartaa waxa kaa maqan oo ilaahay weli uusan ku siinin wuxuu dhahay waxaa iga maqan uu dhahay ilaahan waxaan weydiistay waxaan dhahay ilaahow dembi dhaaf aan ku weydiistaa tiro ma tiriyo intaasoo kun adiga dartaada ayaan waxaan rabaa ilaahay dartiisa awooddaada oo aada leedahay oo wax walba aada ku samayso ma safri karo laakiin sheekh aan jeclahay jiro imaam aimada ka mid ah oo kutubtiisana aan akhristo ilaahu indhahayga iigu qabooji inaan arko isagoo nool sheekhaasoo ah imaam axmed ibnulxambal markuu dhahay imaam axmed ibnulxambal wuu ku soo booday sheekhii dhudhunkashuu bilaabay inuu dhudhunkado ninkii markaasaa wuu yaabay marka maxaa dhacay wuu dhunkanayaa marka wuxuu dhahay maxaa dhacay markaasaa wuxuu yidhi wallaahi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu igu soo leexiyuu yidhi ducadaadii awooddeedii wuxuu igu soo leexiyey xaafadii ama magaaladii ilaahay subxana wataala wuxuu igu soo leexiyey masaajidka hortaada ku yaalo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu iga soo saaray masaajidkii oo hortiisii inaan seexdo waa layga soo deediyey masaajid hortiis in layga soo qaada gurigaaga foornadaada hortiisa laygu soo tuuray wuxuu yidhi waa awoodda ducadaada ilzam manaa wad daa'im ha kala joojin marka waxaan idin xusuusinayaan kusoo gabagabaynayaa nebiga wuxuu yidhi xadiis oo la yiraahdo waa daciif xadiiska laakiin macnaahu saxiix macnaha xadiiska waa saxiix man lazima alistikfaar qofkii joogtay istikfaarka jacala allahu lahu min kuli hamin faraja ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب حديث كاسو لا قفكي جوجتي استغفر الله إلهي سبحانه وتعالى wax walba oo kurba haysato ilaahay uu ka qaadaa ciriiri kasta uu ku jiro ilaahay uu ka saaraa wuxuusan filaynin uu rabana ilaahay wuu siiyaa saddex darsi oo waaweyn istikfaarta akhri maalin kasto darsiga labaad boqolaal intaad gaarsiin kasta gaarsii hadalka bini aadamka aad ku celcelin lahayd iyo waxyaalaha kale aad dhihi lahayd booskiisa waxaad ku bedeshaa istikfaarta saddex adigoo waxaad rabto qorshaystay ilaahay inaad weydiisato ilaahay weydiiso waxay doonta ahaato waad heli wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu